السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبرنامج baritaanka soo gudbiyay daacaladeeda ciid wanaagsan waa maalinimada Sabtida 13 bishii 2020 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed munaasabada ciid awgeed kooxda Bambeyga ee qaranka ayaa waxa ay muusig niyada ugu dhisayaan u garaacay shaqaalaha iyo dhaqaatiirta kaga jira safka hore la dagaalanka COVID-19 fadlan hadee tahay markii kugu horeysay channelka subscribe saar gambaleelkana furo si aad noola socotid haddaba daawadayaal waxaan warkeena ku bilaabeynaa maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu fariin u diray shacabka Soomaaliyeed munaasabada Ciidul Fidriga awgeed isaga oo shacabka yiri waxa inaynu ka wada shaqeynaa midnimada iyo wadajirka una shaqeynaa buu yiri si cadaalad iyo ay ku jirto midnimo waxaanu kala shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in la taakuleeyo dadka tabaaleysan ama danyarta ah waxaan kula eedinaynaa isla gudaha dalka Soomaaliya kooxda Bambeyga ee qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay isbitaal Martiini hortiisa ku garaaceen muusiga uu leeyahay qaranka kaasoo ay niyada ugu dhisayeen shaqaalaha iyo dhaqaatiirta kaga jira safka hore la dagaalanka xanuunka COVID-19 haddaba daawadayaal waxaanu idiin haynaa oo kala wararka dibadda hadaynu galno suxufigii Jamaal Khashoggi ee lagu eedeynayay dilkiisa inay ka dambeysay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa markii uu wiilkiisa curadka ah uu saxaafadda u sheegay inuu cafiyay dadkii loo haystay inay aabihiis dileen dadkaasoo uu Sacuudigu xirxiray oo ahaa dad Sacuudiyaana kaasoo ahaa dad mas'uuliyiin lagu eedeeyay inay dilkaasi ka dambeeyeen una xiraa ayaa waxa uu wiilkiisa curadka uu cafis u fidiyay hase ahaatee goor dhaweed oo maanta ayaa waxa soo shacbaxday in gabadhii u doonaneed Jamaal Khashoggi oo dhalashadeedu ahayd Turki ay arintaasi diiday ayna tiri ma aanan aqbalin cafiska uu fidiyay wiilka uu curadka u ahaa Jamaal Khashoggi haddaba daawadayaal waxaan kaloo idiin haynaa dalka Brazil ayaa waxa uu ku sii siqayaa amaba uu ku dhow yahay inuu galo kaalinta labaad ee ugu badan dadka ku dhimanaya amaba uu soo ridanayo cudurka COVID-19 sawir ama film uu duubteen diyaaradaha loo yaqaan droniska ayaa waxa ay soo saartay xabaalo wadareed aad ay tiradiisu u badan tahay oo ka socda meel ka baxsan caasimadda dalkaasi Brazil kaasoo loo maleynayay in xabaalahaas loo diyaarinayo dad ku laaday amaba ku dhamaaday cudurkaasi waxaanu kaloo idiin haynaa wararkeena dibadda hadaanu idiin sii faahfaahino dalka Pakistan waxaa soo dhacday diyaarad 800 qof diyaaradaas oo ahayd diyaarad rakaab oo isaga kala goosho gudaha dalka Pakistan ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku dul dhacday xaafad ama meel deegaan ah waxaas la sheegayaa inay ka badbaadeen 2 qof oo kaliya ilaahay hadda waxa la xaqiijiyay waxaas loo badinayaa in inta kale oo dadka diyaaradaas saaraa aanu cid ka badbaadin maahan markii ugu horeysay oo Pakistan ay diyaaradu ku dhacaan waxa sanadkan gudihiisa la sheegay inay tahay diyaaradii saddexaad oo halkaas ku dhacda isla dalka Pakistan baan ku guda jirnaaye dad careysan ayaa waxa ay gubeen calanka Israa'iil iyagoo ka careysan sheegashada ay Israa'iil sheeganayso Qudus waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka Yemen ayaa waxa isa soo taraysa in uu dadku soo ridanayo amaba uu ku sii fidayo cudurka coronavirus Yemen oo la daalaa-dhacayso colaado si muddo dheer halkaasi ka jiitamay ayaa waxa la sheegay inay haddeer wax walba gabaabsi ku yihiin marka loo eego dawooyinka ama qalabka lagaga hortago la dagaalanka xanuunkan coronavirus hay'adda caafimaadka adduunka ayaa waxa ay mar iyo laba ka soo saartay digniino ku aadan in ay Yemen noqon karto halka ugu dhimashada ama ugu saameynta badan ee xanuunkaas uu aafo u geysto waxaan haddaba idiin haynaa daawadayaal hadaan u gudubno dhankaasi dibadda dalka Mareykanka yarkii madowga ahaa Axmedu oo dhawaan la dilay ayaa waxaa la sheegayaa in shakhsi saddexaad loo xiray kaasoo ah 13 jir ka duubay ayaa la markii la dilay filimka oo Boolimo